17 November 2012 nin la dhaho Alvarenga oo khibrad dheer u leh kalluumaysiga ayaa soo kaxaystay wiil 23 jir ah oo ku cusub shaqadan kadib markii uu saaxiibkiisii ay si joogto ah u wada shaqaysan jireen u suurtagal weyday maalintaas inuu soo baxo. waxay doonayeen ka soo koreen Costa Azul, Mexico, iyagoo rabay inay badda ku jiraan 30 saacadood si ay u kalluumaystaan. badda markii ay ku soo fogaadeen waxaa bilowday duufaan culus oo ku qasabtay inay dhaqso ugu soo laabtaan bariga. wax allaale wixii kalluun ah oo ay dabteen way iska daadiyeen si doontu ay u fududaato dhaqsana u socoto. Alvarenga wuxuu raadiyooga doonta ka wacay madaxda kalluumaysatada tuulada si loogu soo gargaaro, laakiin nasiib darro bateriga raadiyooga ayaa baqtiyay. iyaga oo soo dhawaaday barigan arkaya motorka doonta ayaa xumaaday. dabaysha ayaa markaas u socotay dhanka badweynta, doontana sii qaadatay. wax dhul ah oo dhinacaas ka dhowna ma jirin. Alvarenga iyo wiilka ayaa isfiiriyey iyagoo cabsi iyo naxdin dareemaya. waxay bilaabeen inay xisaabaan biyo iyo cunto inta u hartay iyo inta maalmood ay ku filnaan karto. intan inama gaaraysa ilaa bari, ayuu wiilka dhahay. way inoo dhammaatay, waan dhimanaynaa. Alvarenga wuxuu isku dayay inuu dejiyo wiilka isagoo naftiisa u murugsan. badda ay saaran yihiin ayaa ah badweynta Pacifiga, waa tan ugu weyn badaha oo idil caalamka oo dhan. 3 qaybood hal qayb waa Pacifiga. haddii la isku daro dhulka adduunka oo dhan, weli badweynta Pacifiga ayaa ka weyn. fursadda in labadan la soo helo aad ayay u yar tahay. cuntadii iyo biyihii ay wateen maalintii afraad way dhammaadeen. markuu roob yimaado caagado ay wateen ayay u dhigayeen si ay u cabaan, laakiin badanaa kaadidooda ayaa u cabitaan ahayd. Alvarenga iyo wiilka gacmahooda ayay ku dabanayeen kalluun ay cunaan. maadaama doon yar oo badda dhexdeeda maraysa ay ku xayiran yihiin, xaaladuna cakiran tahay, dab kalluunka lagu bisleeyo ma jiro. cayrin inay ku cunaan ayay danta ku kaliftay. maalimaha ayaa isbuuc isku bedelay. isbuucyadan 4 bilood ayay gaareen. weli wax gargaar ah oo u yimid ama u soo socda ma jiro. tuulada ay ka soo tageen markii dhowr bari laga waayay waxaa la bilaabay in badda laga raadiyo, laakiin maalmo fara badan markii la daydayay lana waayay waa laga qoostay waana laga sabray labadoodaba. Alvarenga iyo wiilka ayaa is hor fadhiyay 4 bilood. madadaalo waxa uu ahaa hurdo iyo inay sheekaystaan, laakiin sheekoo dhan waa ay ka dhammaatay kadib markii ay isku sheegeen sheeko kaste oo ay weligooda maqleen iyo taariikh nololeedkooda. 4 bilood waxay cunaan kalluun cayrin ah mooyaane wax kale ma jirin. markii uu roob jiro haddii laga reebo, kaadidooda unbaa biyo u ahayd. wiilka 23 jirka ah is adkayn dheer kadib waa uu quustay. mar dambe inuu kalluunka cayrinka cuno uu diiday. war isdhib oo kalluunka cun, wax kale ma haysanee, ayuu Alvarenga ku dhahay wiilka. waad dhiman doontaa haddii aadan isku qasbin ee isqasab oo cun. inaan sii noolaado maxay ii taraysaa? ugu dambaynta labadeennaba baddan ayaan ku dhimanaynaa. intaan mar dambe kalluun cayrin ahan cuni lahaa, kaadidaydan aan cabi lahaa, geeri ayaa ii dhaantaa, ayuu wiilka ugu jawaabay. dhowr bari kadibna markuu diiday inuu wax cuno gaajo darteed nafta ayaa ka baxday. Alvarenga oohin uusan weligiisa ooynin ayaa ka timid. si weyn ayuuna u baroortay kadib markuu hubsaday wiilka inuu meyd yahay. 4 maalmood ayuu ag fadhiyey, wuxuuna ka fikirayay wiilkan inuu reer ka dhashay. hooyadiisa, aabbihiisa iyo walaaladiisa mar hore ayay ka qoosteen. hadda ayuuna geeriyooday. qof uu wici karo oo uu sheegi karo ma jirin. keli ayuu ahaa baroordiiqa. 4taas maalmood Alvarenga maskaxdiisa waxaa ku jirtay inuu asigana isdilo sida ay u dhammaato marxaladan xun oo uu ku sugan yahay. laakiin wuxuu go'aansaday inuu sabro ilaa uu badda ka badbaado, barina yimaado ama tii alle u timaado. 6 beri kadib geeridii wiilka, meydka urkiisa ayaa doontoo dhan qabsaday. Alvarenga wiilka dhintay jirkiisa badda ayuu ku tuuray. dabaysha doonta sii waday. hadda Alvarenga oo uu keli yahay, qof uu la sheekaysto iyo wax uu isku madadaaliyo ma jirin. si joogto ah wuxuu ku riyoonayay cuntada noocu ugu jecel yahay iyo reerkiisa. muddo dheer markii uu doonta sii saarnaadaba wuxuu arkayay maraakiib waaweyn oo meel fog sii marayo, laakiin si uu isugu tuso ama ugu dhawaaqo
ma jirin. Intuu badda sii socday maalinba maalin kale ayaa ugu biiraysay. 4 bilood 10 bilood ayaa ugu darsantay. 1 sano iyo 2 bilood badda markuu saas u sii sabeynayay, quusasho tii ugu xumayd uu maraayo, xaaladuna ay xun tahay. Markaas ayuu ugu dambayntii arkay dhul yar oo fog. Wuxuu dareemay in dabeesha iyo doontaba ay u socdaan dhinaca jasiiradda. waa jasiirad yar oo ku taala waddanka Marshall Islands. 17 November 2012 doontii yarayd oo uu soo koray 30 January 2014 ayuu farxad darteeda ugaga booday si uu xeebta dabaal ku gaaro. 438 maalmood kadib wuu dhammaaday dhibkii hayay. ugu dambayntii Alvarenga badda waa uu ka badbaaday. sabarkiisana waxaa abaalmarin u noqotay inuu sii noolaado. markii uu lugihiisa saaray bariga, wuxuu albaabka ku garaacay guriga ugu horreeyay uu arkay. dadka meesha degnaa ayaa isugu soo baxay kadib markii uu uga waramay marxaladihii uu soo maray. isla markiiba waa loo gargaaray. markuu 11 maalmood ku jiray isbitaal, Alvarenga waxaa loo xaqiijiyay inuu caafimaad qabo oo uu ku noqon karo waddankiisa. laakiin waxaa la ogaaday inay hayso dhiig yari iyo hurdo la'aan. wuxuuna cabsi ka qaaday biyaha. sanadkii 2015 wuxuu wareysiye taxane ah oo ku saabsan dhibaatadiisa siiyey wariye Jonathan Franklin oo daabacay sheekadiisa. buug lagu magacaabo 438 maalmood, sheekaan caadi ahayn oo dhab ah ka badbaadida badda. wax yar kadib markii la sii daayay buugga Alvarenga, qoyskii wiilkii dhintay ayaa dacweeyay asiga, iyagoo ku eedeeyay inuu badda markii ay ku jireen gaajo darteeda u cunay wiilkooda. inkastoo ay Alvarenga iyo wiilka ku heshiiyeen haddii midkood dhinto, midka kale inuu meydkiisa cunin. ogow adduunyadu inay tahay imtixaan. xaalad walba oo ku soo martana inay dhacayaan oo keliya wixii Ilaahay kuu qoray. samir oo sabar yeelo.